daawade ku soo dhawow channelkeena Sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe saar channelkeena gambaleel kala furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub haddii Premier League lagu qaadi lahaa goolasha la dhaliya xilliga dambe ciyaaraha Liverpool ayaa sanadkan Premier League ku qaadi lahayd dhibcaha goolasha la dhaliyo xilliga dambe ciyaaraha waqtigii hore waxaan maqli jirnay Fergie time oo Ferguson Manchester wadan jiray ba xilli dambe ciyaarta gool ay dhalayeen 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 waqtiga waxa la dhigi jiray Fergie time yaani waqtigii Ferguson baa la dhigi jiray markii 9 la gaar ciyaarta waxa la dhigi jiray haye waqtigii Ferguson la joogo macnaha 9 markii ciyaarta taagan tahay maxaa dhici raba haye gool ma xilligan ay dhal rabaan Manchester xilligan ay gool la rabtaan la dhigi jiray yaani xilliga Fergie time dhimashada ciyaarta bay ahaan jirtay hadda waxa soo baxay Colvage time ba soo baxayo hadii Fergie time jiri jiray waxa yimaad waqtigii Klopp isna yimaaday waqtigii Ferguson dhimashada haduu jiri jiray waqtigii Kloppna waa yimaadayo Colvage time ba yimaadayo xilli dambe ayaa ciyaaruhu gool laga dhalanayaa hadii Premier League xilligan yaani dhibcaha ugu badan hadii koox ay ku helayso goolasha la dhaliyo xilli dambe Liverpool ayaa dhibcaha ugu badan ku qaadi lahayd Premier League xilli ciyaareedkan warada saaxiib channel ku cusubtaa noo subscribe garay si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha warwaakaya Liverpool intay geynina ayaa waqtigii war waxaan isleeyahay horta Manchester horta bariyahan way hooseysaa oo yaani Manchester waa ka taaltaala oo Manchester way ka jaban tahay oo waxay u muuqataa Manchester time Ferguson markuu ka tagay inay Manchester noqon sidii Liverpool ay noqon rabto sidii Manchester oo kale yaani hadda ka hor waqtigii Manchester ay kacsaneed Liverpool way duntay waanay huruday ilaa 30 sano bay hadda Liverpool jiiftaa oo ay wax horiyal ku guuleysan waana sababta Liverpool raadinaysa horiyal ku guuleystay Premier League ay u raadinayso maadaama Liverpool inta sare ay Manchester kacsaneed ee koobka daldalanayeen ee 13 sano Premier League Manchester ay qaadaysay intaas Liverpool way jiiftay waxa la isleeyahay cagsigeeda maadaama waqtiyo badan oo Liverpool ay jiiftay Manchester ay shaqeysanaysay armaal la jooga baa leeyahay waqtiyadii Liverpool in ay shaqeysan lahayd Manchester ay jiif lahayd wani muuqata mid daayo Manchester waxay noqotay koox iska galab oo todobaadna dhumaysa todobaadna la helayo adisbuuca waa laga badiyo ilmo yar Bournemouth baa ka badiyay waliba Jose King baa ka dhaliya gool fantastic ah iyagoo wada taagan abuu ma taqaan intuu ku kontrolsho kubaduna islaam kaga dhaliya goolka warmayga lacagta raga lagu beelay la sheegayay magwaaga la sheegay may wayaga joogu sida ka yeelay markuu waxa lagu leeyahay nimanka la yiraahdo Liverpool cagsigii bay hadda wadaan ya Manchester ayaa koonku maamuleysay waxay laba koox oo tartaba Premier League taariikhda weeyaan labadan kooxood cadawtooy weyn baana ka dhaxaysa marka Manchester jabkeedu waa Liverpool farxadeeda Liverpoolna jabkeedu Manchester waa farxadeedu waa waxaan markii hore dhihi jiray ninko jabkiisu waa ninko farxadiisu ninko kale nin jabkiisu waa ninko jabkiisu ninko farxadiis watan dhihi jiriyo nin markuu jabsan yahay dhibaato ku jiro nin bay farxadiisu tahay iska qusul gariiraya qoslaya marka waa kaaye aan markuu waxaan isleeyahay armayba cagsiga noqon doonta taymaan loo wadbaxita dadka qaar Manchester waxay gaarin in yiraahdaan war waxaan ka baqaynaa bay yiraahdeen in nagu dhicin sida Liverpool oo kale Berbatov bahli maalid wuxuu ma taqaana waxaan ka baqayaa buri sidii war Liverpool oo kale waqti dheer in nagu qaadato in Manchester Premier League ay qaado Liverpool hadda waa ka 30 sano horyaal raadinaysa waxaan ka baqayaa Berbatov in anagana nagu qaadato yaa in waqti dheer horyaal Premier League aanu soo celino marka Manchester cabsidaas baa ku laga qababa marka labadanu hadda bal fiirmku waxaan erga ku keenay Fergie time ayaa jiri hadda maxay imaaday Colvage time baa imaaday Manchester baa lagu yaqaani jiray inay waqti dambe gool dhaliyaan hadda waxay imaadeen niman Liverpool oo Klopp u wato yaa oo xilli dambe gool dhalinaya waa tan todobaadkan yaabay anigoo ciyaar tubinayaan war shanda oo yaani iyadu 86 daqiiqo ay tahay hal ever lagu leeyahay oo Aston Villa gool leedahay aan horta waxaan ogaa markasta inay ku ka gool dhali karaan to anigoo ciyaaraha tibir waxaan leeyahay habeenka ka war Liverpool hadaan ba loo labaynin war waxay u socdaan habeenka wax sameeyaan aan waxaan leeyahay kooxaha Liverpool la ciyaaraya maxay diidaya inay iska dilaan Liverpool waa naf adeeg ma dhintaan bay qabaan nimankaas laba gool hadaan ka dhalin habeenkii ma ka nasanaysid Liverpool laba gool albaabka loo dhiga ugu shub mar koowad mar labaad ugu labay waxba Liverpool waa ka seexanaysa laakiin Liverpool hal gool dad ku hayso intay ka bareejeen bay kugu darayaan aan markaan arkay ciyaartooyga Aston Villa gool kala wad qasaarinaya ba waxaan arkay in ma taqaanaan laga badinayo kuwa ka habeenkii Leicester sidaas baan arkay oo habeenkii kalena waxaan arkay maxal la ciyaaraya kuwa kan Tottenhamna sidaas baan arkay hadaan Liverpool loo labeynay anigu waxa madax ka dareemaya Liverpool in leeyahay in kubaddu ay leedahay war Liverpool ay imo way bareejay igu guuleyso in kubaddu leedahay baan dareemaya
war waa nimankii isbuucu ma taqaana inta gool lagu lahaa 85 daqiiqo yimaaday ee gool dhaliyo weeyaan nimanka niman caadi ma ah yaqay waqtiga farji tambal lagu aqooni jiray waqtiga Manchester ee Ferguson wadan jiray ba waqti dambe baxsan jireen hadda waxa yimaada Liverpool ba waqti ku wareegay cagsigii marka balfiri Manchester baa hurada Liverpool baa kacsan hadda oo wax koob qaad bilowday ya waqtiga Manchester ay si jirtay gool dhalina Liverpool baa hadda ku soo wareegay marka waa sababta uu leeyahay armo waqtiga uu soo wada wareega Liverpool oo Manchester ka soo wada wareega marka waa kaayo hadda maqri jirtay farji time College time baa yimaaday waa ka isbuuca inta la bareejay Robertson bareejay dhamaadkii buu haddana 5 daqiiqo ugu dambeeyay ciyaarta maxaan ri war 5 baa lagu daray laakiin waxa laga yaabaa ri 5tan in lagu shabay ilmuhu afka laga saarnaayo isla markii ilmihi bulshoon baa lagu keenay waxaan reemo bulshoonki yahay Arnold uu qasaaray isla markii bulshoonku qasaaray haddii kubadda koorna la soo tuuro la madaxay ciyaartu way dhamaan lahayd markaas waxaan ri laga yaabo haddii bulshoonku ay qasaariyeen still Arnold wayaan waa cagadahabi hadda duu soo laado armiba dhaliyaan goolku isla markiina maalin baa madaxa dhaliy waa markaan yaabeen isbuucu anigu haddaan waasho waaw iraahdo nimankan Liverpool baa i waalaya toddobaadku wuxuu noqday hadal la yaab leh oo dadku taageerayaasha kubadda cagta Maxamed Qadar oo toddobaadkan aad bad u Liverpool oo yiraahdeen maxay ran waa iga yaabay kooxda ka anu waa i waaleen kooxdaas waxa weeyaan nimanku maalin kasta baxsanaya أنا وان كيابان كودا أنا وحنا واركان دي بان كان سنة كان مين رسول الله منو أركا وركوا توات كيابان نوري هدان وهالشوا ويرهدو إلهي نمو عليه كوان كبار يقد كوان كذا بيبان يدري مركا فرجي تايم هذا مغلي جرتي وحي ما ذكر بيج تايم أدم كل شيء جيا وحلو ليس ليفربول سنة عيارات كان وكوحدة دبعها وجود بدن كهالشيء جولاش اللي دخل قدام بيع عيارته ليفربول أيها 6 جول ليسي وحي كدم بيد دخل ستيت الإشارات عيارته شن دخل قدام بيع عيارته مركز سجاشك شن أي كلمة أنت هاي كوحدة جولاش وجود بدن كان لسبريمير ليج سنة كان وليفربول أو دخل ستيت الإشارات وحي كدم بيع ليفربول 6 جول بيع العيارات كانوا ليسي ليفربول بان هان ليت كوحدة دبعها وجود بدن كهل هيد هدي حل عيارات كلا تري لها جولاش حل دمبلر ليو هدي هريال كبريمير ليج لوجو قاعد لهانا ورياد جول بدن دليي وحي كدم بي دخل 85 وريا جول بدن دليي وحي كدم بي 5 دقيقه dadki ya gool laliyo ugu badan dhaliyay 5 daqiiqo ugu dambeeyay ciyaarta hadii la dhihi lahaa Liverpool baa noqon lahayd Champions England laba gool oo soo daahay ka dhalin Aston Villa isbuuca waana waxa keenay inaanu raahno College time hadda kadib wixii ka dambeeya waxa bilowday waqtigii College time hadda maqli jirtay waqtigii Fergie time ee Ferguson waqtigiisii College time baa yimaaday oo kale waqtigiisa baa yimaaday waana cagsiga wax walba Manchester lahayd kuwan bay u soo wareegin karayaan baa laga yaabaa marka nimanka kanu waa nimankii waqtiga dambe gool ku dhaliyo hadda kadib iska jira marka hadii Fergie taamad ogeyd College time baa yimaaday oo nimanka kanu ilaa daqiiqad ay dhiman tahay ma laga badi karayo ilaa daqiiqad ay dhiman tahayna haysdii Liverpool baa bareejo gashayo todobaadku waa tii la yaabay hadii aanu eegno yaa ciyaari ugu dambeeyay 9 daqiiqo baa mar Milner penalty uu dhaliyay todobaadkan maalin xilligu gool dhaliyo wad arkaysay Robertson xilligii goolku bareejo keen wad arkaysay Liverpool baa lagu leeyahay 5 dhibcood bay ka heshay Premier League saddexdii gool u dambeeyay ay dhaliyeen saddexdii gool waqti dambe ciyaaru ay dhaliyeen saddexdii gool ay dhaliyeen 5 daqiiqo ugu dambeeyay ciyaar Liverpool waxay ku heleysay dhibco badan bay ku heleeyeen team Milner Leicester maxaa la yiraahdaa Aston Villa todobaadkan iyaguba hadii Premier League la xisaabin la 5 daqiiqo ugu dambeeyay ciyaaraha Premier League wixii ka dambeeyay daqiiqadii 85 goolasha la liiga horyaal ku qaadi lahaa bal fiir Liverpool waxay haysataa 5 dhibcood oo 3 gool bay dhaliyeen wixii ka dambeeya daqiiqadii 85 yaani 5 daqiiqo ugu dambeeyay ciyaarta 9 la gaarin 85 iyo 9 maxaa u dhacay 5 daqiiqo u dhaxayso 5 daqiiqo ugu dambeeyay ciyaarta Liverpool waxay dhalisay 3 gool Man City waxay dhalisay 4 gool balse Liverpool ayaa 5 dhibcood ku haysan lahayd goolasha la dhaliyo daqiiqadaha ugu dambeeya ciyaarta ama 5 daqiiqo ugu dambeeya ciyaarta maxay Liverpool 5 daqiiqo ugu dambeeya ciyaar 3 gool bay ku dhaliyeen laga yaabo City inay goolasha ka afarta daqiiqadaha ugu dambeeya yani hal ciyaar bay ku kaysteen gool badan baa suurtagal weyn ah wayba tahayba oo Man City ma jirin xilli ciyaareedkan xilli kulan dambe oo ay baxsanay ma jirin mar bay Tottenham ka dhaliyeen VR baana ka diiday marka Liverpool 3 gool bay dhalisay 5 dhibcoodna way ku heleen 5 daqiiqo ugu dambeeyay ciyaarta Man City 2 dhibcood bay ku haysan lahayd Sheffield 2 dhibcood Wolverhampton 2 dhibcood Tottenham 3 dhibcood Arsenal waxba dhibcood kuma haysan lahayn xilligaas looga mabaram inay gool laliyaanba Crystal Palace 2 dhibcood bay heli lahayd Everton 1 dhibcood Manchester waxba dhibc ma haysan lahayn bal fiiri kooxdii Fergie time la dhigi jiray 1 dhibc kuma haystaan 5 daqiiqo ugu dambeeyay ciyaartu gool maba dhaliyaanba ya Newcastle waa ka wax dhibc kuma haystaan Norwich si lamida Brighton Albion 2 ku haysan lahayd Burnley Hull Leicester Southampton West Ham waxba dhibc ma haysan lahayn Aston Villa 2 haysan lahayd Chelsea Bournemouth Watford wax dhibcood ma haysan lahayn marka waxa lagu leeyahay Liverpool ayaa 5 dhibcood ku qaadi lahayd Premier League hadii la xisaabin lahaa goolasha la dhaliyo 5 daqiiqo ugu dambeeyay ciyaarta yaani wixii ka dambeeya daqiiqada 85 ee ciyaarta
marka wax walba way isbedeleenoo waqtigii Fergie time wuxuu isku bedelay college time buu isku bedelay maanta Premier League Liverpool baa waalayso haddii Manchester United soo waali jirtay xilli dambe ay gool ku baxsan jireen Premier League taariikhda kuwa kan ayaa yimaaday toddobaadka soo aadan iyaga iyo Liverpool Man City bay isla ciyaari doonaan wala ciyaar bay tahay xilli Guardiola uu toddobaadku cadeeyay Liverpool wuxuu waa lagu ogyahay mucjisada kan labadii san la soo dhaafayba xilligan bay baxsan jireen buu xilligan bay baxsan jireen buu yiri marka waxaan ku garanay yiri laakiin club waxa Liverpool ku daray ninka la Guardiola wuxuu yiri ayagu marka xilli dambe gool raadinay yiri anigu barnaamijkii wixiga dhibciga marna arursanaya yiri macna يعني wuxuu yiri ninka tabarta yar la xilli dambe gool raadiyo leeyahay laakiin anigu isku kalsoona uu leeyahay goolasheeda kooxahan la ciyaarayba mar baan dhibcu ka qaadanaya uu leeyahay anigu xilli dambe gool ma raadiyo leeyahay marka toddobaadka dambe ciyaar bay tahay oo iska jira Man City oo idinku yaan idinku garaacin xilliga college time bariyahan college time baa socday iska jira Man City idinkuna in college time gool idinka dhaliyo bariyahan xilligan sidan bay bilaabeen inay xilli dambe gool dhaliyaan